garaadkii qurahaaya joogay laascaanood ayaa yidhi waxaan ku qabanayaa shir garaadada oo dhana si aan dadka u dejinno oo nabad loo helo waanu ku raacnay oo garaadkii quraha joogay garaadada kale u yeedhaya dad badan baa nagu canaanta waa garaadadii reer sool nabad baa laga sugayay waa odayaashoodii way yimaadeen 4 cisho markay joogaan dagaalka hala galay dhahay garaadadii hala jihaado madaxda Somaliland ee gobolka ka shaqeysa iyo dadka taageersan Somaliland ee ama haldoorka ah cilmiga aqoon leh ee dhaqaale leh inay si gaadba u disho isla markaana ay ku abuurto intay ku milatay dadweynihii in Somaliland dadka la warayso muddo dheer oo arrintaas socotay dadkii la laayay intooda badan dadkii laayay ama raadkooda la haya waxay ku xiran yihiin shirarka Somaliland caalamkana waa loo sheegay waana soo bandhignay laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa beefkatay rima gaadho dadka dhalinyarada iyo dumarka caadifadooda ayaa 10 sano lagu akhriyay iyadoo hab diini ah loo marayo masaajid iyo cilmi loogu akhriyayo dadkooda ay leeyihiin oo suurtagal ahayn kuwa loo laayay saraakiisha ahaa kama soo jeedin gobolka Sool qaar badan arrintaa dadka caadifadooda ayay saamaysay taasaa keentay in dadka la kiciyo waxa taageerayay labada cadow ee Somaliland dad qurba jooga oo iyagu fursad ka daydaya siyaasadeed buuq ka soo dhaca meel bar way joogaan kuwaas waxa iyagu dabka ku sii shideen caadifada dadka in horiyada la iska dhiciyo waa la goysanayaa bay kala ciiyo soo daray waa la haystaa bay soo daray waxaan idin sheegayaa dagaalku maalinta uu bilaabmay ee dadka la kicinayay hay-adaha dawladda oo dhan oo dhowr iyo 40 xafiis ka furaa oo wasaarad leh oo commission leh oo wasaaradda madaxa banaan leh baan leh xeer ilaaliye leh maxkamad leh waxa qulaho oo reer laascaanood ay dadka maamulaya gobolka barasaabka oo kaliya waxa la yaabanahay bal ciidda gumaysanaysa la dagaalamayaan iyo dalka magaalada la burburinayo ee laascaanood oo maanta iyo maalintiisa ay tahay aanu kala arkayno waa ayo kuwa laga xoreeyay barasaabka mooye inta kale maamulkeedu aqoon-yahankii iyo waxgaradkii iyo kuwa ay doorteen meeyay ku xigeenka hadda ku doortay ayaa u maamulayay marka dadkii la qixi magaaladii la burburi iskuuladii la burburi isbitaaladii la burburi yaa laga xoreeyay dadkii maanta xagga jooga aad baan uga xunahay muwaadiniinta reer Somaliland deganaa Sool ee maanta qaxootiga ah ee la leeyahay ha u gargaareen ee guryahoodii bal cadowga ku soo duulay ka saaray ayaanu doonaynaa inuu soo ogaano 15 sano ayuu ciidanka qaranka ee Somaliland joogay gobolka Sool waxaan ammaanaya mahadnaq ahayn waa la wada joogay lagama soo celin ciidan hal dambi oo waliba kuwa foosha xuna kubsileen dhacale dil hala soo helo hal kiis baa bari ka dhacay magaalada aanu malayn kala beer kana ahay oo la askar baa la barinti 17 sano gabadha kubsado dukaan la dhaco waxa xaasha kala maxaa ka socday kala saacad seen waqti dadkii aad iyo aad baan uga xunahay wax la eega karana ma waxa loo dadka reer Laascaanood nabad wax dhaama ma garanayo waxay dadkaas qaxooto ahaadana garan maayo magaaladooda yaa kor jooga ciidankii Soomaaliyeed ka baxay saldhigiisiba ku noqday in dadku yimaadaan in la wada hadlo garaadkii qurahaaya joogay Laascaanood ayaa yidhi waxaan ku qabanayaa shir garaadada oo dhana si aan dadka u dejinno oo nabad loo helo waanu ku raacnay oo garaadkii quraha joogay garaadada kale u yeedhaya dad badan baa nagu canaanta waa garaadadii reer Sool nabad baa laga sugayay waa odayaashoodii way yimaadeen 4 cisho markay joogaan dagaalka hala galay dhahay garaadadii hala jihaado amar subxaanallah waxaan ku soo gabagabeynayaa arrinta
shalay guddoomiyaha guurtida waa ku sheegay nabad ayaan ugu baaqaynaa shacabkana soo ay dantooda magaaladu soo noqdaan iskuuladii furo isbitaaladii dhisno wixii gaari ka soo kabanno waxaynu isku haynana iyo waxa la kala tabanaya fadhi la isku sheego midna ma suurtoobayso xadkii Soomaaliland baan xoog qabadii ku bedelaya ma dhacayso caalamka ka hor caalamka ma dhacdo hadday la istiido dad wada degan oo distoor wala dal hadday istiidan yihiin way wada hadlaan sida markii hore heshiiska wada galeen haddii kii Cabdilqani iyo kii Xaaj Daahir iyo kii odayaashii hore cabqasha ahaa ee Ingiriiska la saxday la diidayo ciidda diidaysay dhaleen waxay u baahan yihiin in la wahadlo ilaa hadal baa lagu dhameeyaa inuu hadal ku dhameeyno taasaan kaga baxayaa haddii ay National Electronics waa hoyga agabka elektrooniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda